Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelka baryaan waxaynu ku jirnay koorsadeeni IoT oo meel dhex noo maraysay marka shalay waxaynu soo sharaxnay cashirkii lixaad maanta waxaynu sharxaynaa cashirkii toddobaad kaasoo ku saabsan PIR sensor PIR sensor haddaa yacni ku tafaaqidiyo waa sensor dareemayo qofka socodkiisa ayadoon loo baahnayn kaamirad yacni for security purpose aa loo isticmaalaa macnaha qof haddii uu soo galo shaygan samee alarmkan samee iridda fur yacni notificationka qofka u dir yacni qofka uu dareema macnaha human hadduu yahay iyo yacni hadduu yahay animal oo kale meelo badanna waa loo isticmaalaa hadda xayaat market haddaad tagtid ama barako iridda qofka inta usoo dhawaanin iridda waa isfuraysaa markuu qofka ka tagana waa isxiraysaa marka sidaasaa loo adeegsadaa yacni sensorkan marka loojikadiisa arkayna iyo qaabka uu shaqeeya as IoT ahaan kusoo dhawaada channel marka koowaad waxaa u baahan tahay inaad soo geshid tinkercardkaada kan wuxuu ahaa cashirkii lixaad oo ahaay haddii aad daawan dib usoo daabo waa IR sensor rabiidka loo adeegsaday dhalada waaye so mar walba waxaa samaystaa new circuit kii hore ha ku dul shaqaynin haddii kale override aa dhicayso way isku dul qormaan mar walba waxaa soo samaystaa new circuit okay marka koowaad waxaa u baahannahay arduino waxaa kale u baahannahay boardkii aan ku shaqayn lahayn so IR sensorka PIR sensorka wuxuu la mid yahay IR sensorka oo kii oo hore aan soo sharxan camal wuxuu leeyahay meel oo power ah iyo meel GND ah marka powerkana wuxuu ku xirmi doonaa qaybtan hoose dab siin doonaa marka uma u baahnid yacni qaybta hoose dab ma lahan iyo waxaas ma u baahno fiilooyinkan waxaa kusoo xirtaa waxaa la yidhahdaa powerkaad fiilooyinka dab kusoo xir qaybtan kore by default sensorkana wuxuu siinaa dab uu siinaa marka hadda powerka waa positiveka waxay la mid tahay 5 voltagekan oo adoo ku xiray meeshan positive ahaan marka kanna waa groundkii waay groundkana negative waa mar walba ama GND aa loo yaqaanaa waa ka ground GND qaybta negativeka lagu xiraa marka qaybtaana kuu saarta qaybtan waxay ku xirmay arduinohay ku xirmay qaybta saarti ugu xir ana hadda qayb noocnoocana ugu xiraa meeshaan igu rakib kaliya kan soo celi bis haddaani booska labaad igu jirtaa okay escape naqshada leenaga halaawdo bis waxaa u baahanahay sensorka markii loo soo dhawaado inuu dhawaaq ama qaylo ama nal uu shido hadda mid ugu fudud waxaa waa nal inuu shido nal soo qaado resistorka waxaa u qaybisaa meeshaan u qaybi resistorka wuxuu leeyahay cathanode iyo anode uu leeyahay cathanodeka waa mainiska waay meeshaan mainiska geli meeshaan oo kan oo anodekana waxaa ku xiriirisaa resistorka ku xiriiri resistorkana waxaa uga xirtaa qaybtan arduinoa ugu soo rakib so marka waxaa jira resistorka qayb uu leeyahay oo belti in ah meeshaan D13 haddaa ku xirtid belti ahaana u shaqaynaa belti in ahaan marka loojikada intaas waaye koodka ogalaynaa koodka hore usoo qoray dib muu sharxayno kaliya haddii aad soo daawata cashirkii lixaad sensorkii hore qaabkaana initialize garaynayna sensorka aan sheegaynay waxaa isticmaali doonaa leenahay sensorka statekiisa godka labaad waxaa ula tacaamushaa inuu yahay input godkan waa kana input waaye maadaama sensor uu yahay wuxuu ku rakiban yahay godkaas leerkana waa belti in haddii meeshaas aad ku rakibtid belti inuu noqonaa laakiin godadkan haddaa ku rakibtid inaad adi sheegatid oo dhahdid godka lixaad godka toddobaad midkaa rateen haddii sensorka statekan wuxuu soo akrinaa godka labaad xaaladda uu ku sugan yahay haddii sensorka statekan variablekan aan soo sheegnay uu high noqdo nalka shid haddii kalena hadinsanaado hadda nooran garay koodka naga xir hadda wax shidan ma laha sensorka waa kanaa markaan inta ku dhufano wax shidan ma laha markuu sensorka guduud noqdo meeshaan waa ujeedaa nalka wuxuu noqonaa guduud haddii aad ka fogaado xaaladiisa sug shaashadda igu yar ka fogeey okay soo dhaweey nalka wuu shidnaanaa stop okay shit okay marka gudaha usoo dhawaatid nalka inuu shidmo waaye marka ka fogaatid nalkood marka loojikada saas u shaqeynaya
I hope cashirka inuu wax inuu kugu soo kordhiyey haddii practical ay noqotona insha allah waa soo gelin doonaa fadlan janaalka noo subscribe garee muuqaalka noo like garee waa ku mahadsantahay daawashada